السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي waxaad nagala socotaan waa youtube channelkeena Sudaysi Media waanigoo ah Sudaysi Cabdisalaam kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaan uga hadlaynaa aafada furniinka ama waxyaabaha sababa furniinka runtii waa arrin bulshadeena fara kulul ku haysa sidoo kale waxaan isku dayaynaa inaan uga hadalno waxaan ku xallin karnaa tsunamigaas ay la ildareeyeen qoysas badan ee Soomaaliyeed mar labaad kusoo dhawaada youtube channelkeena Sudaysi Media fadlan haddaan nagu cusub tahay meesha guduuda noo taabo waa subscribe sidoo kale like-tuna waa noo dhiirigelin aan ku bilowno qodobkeena koowaad waxyaabaha sababa furniinka waa aqoon la'aanta ka haysata dhalinteena mas'uuliyadda guurka ama mas'uuliyadda qoyska runtii qodobkan waxaa moodaa inuu dib noo celinayo xilliga hore Soomaalida waxay ahayd bulsho guuraya ama badiya ama sidoo kale haddii aad u taqaanid badwiga intii aanan soo gelin magaalooyinka ama urbanizationka magaalooyinka dhowr xilli oo kala duwan baan soo galnay kolley ku dheeraan mayno xilliga hore ee miyiga joognay aqoonta mas'uuliyadda ku saabsan guurka waxay ahayd mid waalidku ay u gudbinayaan ilmahooda ama markay ku guda jireen xaaladda barbaarnimo wiilka waxaa u gudbin jiray ama bari jiray cilmigaas aabbaha iyo awoowaha sidoo kale gabadhana waxaa bari jiray cilmigan hooyada iyo eeyada cilmigan oo aan lagu dhigan iskuul iyo jaamacad toona runtii xilligan hadda aan marayno waxay la tahay waxaan ku xallin karnaa in dhalinyaroy muuqaalkayga hadda dhegeysanaysa ama daawanaysa inaan waalidka su'aalo badan weydiino su'aalahaas ku saabsan waayo aragnimada nolosha qoyska ama guurka ama mas'uuliyadda qoyska ama mas'uuliyadda guurka taasoo ay dee waayo aragnimo u leeyihiin 20 sano 30 sano aan u gudubno qodobkeena labaad waa guurka bila hadafka ah waxaa dhacda asxaab saaxiib ah in qof kamid ah uu guursado sidoo kale kuwa kale ay dhahaan hebel buu guursada ama aroos u dhigtay ana aroos dhigto sidoo kale waxaa dhacda laba qof oo dushkaansi ka dhaxeeyay in qof oo labadaas qof ay isla gaareen xaalad guur laga yaabo arrimaha ugu dambeeyay oo qaabka arooskooda u dhacay inay isku qabteen qof kamidana uu si degdeg ah ku guursaday qof kale waxaa dhacaysa inuu dhaho awooddeedaan muujiyo ana aan aroos fiican la dhigo marka waxaa dhacaysa laba qof oo aan isku hadafayn halkaan isugu yimaadaan si dhaqsaan ay ku kala tagaan please arrinkan waxaan ku xalinaynaa please naftaadu ama noloshaadu waa unique qof bini aadana hala barbar ahdaaftaada iyo go'aamadaada iyo noloshaadu waxa tahay qof khaas ah si aad u heshid maadaama aan sameynaysid arrin weyn oo bulshadeena muhiimad u leh adigana muhiimad ku leh ilma imaanaya waana aska bulsho يعني magac leh ama meel deegaan lagu sheego please naftaada qof kale ha barbar dhigin naftaada adiga khaas u leh waxaan u gudbaynaa qodobka saddexaad oo ah tanaasul la'aanta ama isu samrid la'aanta runtii qodobkani waxaa moodaa in bulshadeena Soomaaliyeed tanaasulkuba caam ahaan uu ku yahay mid aad u adag sidoo kale hadday tahay qoysaska إن كل بكل مغين قصبان ديت حي وجامياشين سجار بي معبتاي معبتو أنا شو نقول إن هي حسب كورنين كهالكاسيسين الله فوقانين وحنكو حلين كنا تنازل أنتو بليز قف كأنورش لو ذا جيسد وقع عليها حاجة وانولش هذه معها قف إن تلقين درسكه كل تطبع إن مجالبه وحموده إن أم إثيوبيا أم كينيا متكل على العادية whatever قف كان كما إيمان ميل فوق ونلش هذه قف كان نلش لو ذاكتي أركع خاص كأقوها عداود يسن غنين أما تقال كأم بروبلم متسيفو هذا برول بتنازلك سمير كنا وحقيقي يقوله نلش خاصة كان هذا كهلنا وجورك هذا جورستي جورك هو شرف ليه هاي
hadafkiisa ku xaqiiqsamaya waa samirka. ilmihiina isugu samra, noloshiina si ay u baraadho aad hadafkiina u xaqiijisaan aad noqotaan dad isku duqooba. runtii labada qof oo isku duqowda aan isfuran sidaa ku dhimataa way ka sharaf iyo maamuus badan yihiin, xataa ilmahoodu kaga faan badan yihiin ilmaha kale. please samirka aan badino. qodobka u dambeeya oo ah faragelinta gacmaha shisheeye. faragelinta gacmaha shisheeye markaan ka hadlayno ma ahan inaan ka hadlayno beesha caalamka iyo banaanka wax nooga imaanay. labada qof oo nolosha ku midoobaya, hadday tahay asxaabtooda, hadday tahay labada qof si kasoo kala jeedaan, please faragelinta ka daaya. labadaas qof go-aanka ha loo daayo. haddii aad wax ku taageeraysid, yes welcome, laakiin ha caqabadaynina, hana dhibaataynina noloshan wanaagsan oo ay sameynayaan ama ay leelayaan. inaad taageero u muujisan mooyaane, haddii wax khaldan ay sameynayaan ama go-aamo khaldan qaadanayaan, ka caawi adigoo u muujinaya inaad tala siinaysid, laakiin go-aanka iyaga u daa. dhalinyarooy, idinkuna waxaad noqotaan qof mas-uuliyad aabanimo iyo mid hooyanimo qaaday. muujiya, degdega joojiya, go-aanada caadifiga iska yareeya. sirihiinana idinku khaas iyo go-aamadeen haynaya ahaadaan. haddaad banaanka keentid, faragelintu iyo haadku wax ku dhacaya raqdaas. laakiin haddii ay khaas inay ahaadaan, waxay noqonayaan kuwo idinka inay khaasa oo gacmihiina ay ku jiraan. laakiin waanad ka badbaadaysaan faragelinta shisheeyaha ama faragelinta banaanka idinka ah. waan kaga mahadcelinayaa muuqaalkeena sidaad nolol daawateen.